السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadku waxay u kala safraan magaalooyinka maalin walba, saacad walba iyo daqiiqad kastaba. waxaana gaadiidka lagu safro kamida diyaaradaha, waxaana qasaba in garoonka diyaaraddu ku soo degayso ama ay ka kacayso uu ahaado mid u diyaarsan si loo ilaaliyo badbaadada dadka. laakiin waxa jira madaaro aan u diyaarsanayn, ahna kuwa ugu halista badan caalamka. waxaanan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkeena maanta. magaalada Greenland, garoonka diyaaradaha ee Narsarsuaq. madaarkan waxaa lagu tiriyaa mid kamida madaarada ugu halista badan caalamka, waana mid aad u yar, halka sidoo kale uuna ahay mid u diyaarsan inay diyaaradi ka kacdo ama ay ku soo degto. waxa ka buuxsamay dhammaan laymanka wadada baraf. sidoo kale hawada goobtan oo degdegeedu aad u sareeyo ayaa ah mid halis gelisa diyaaradaha ku soo degaya garoonkan. mararka qaarna wuxuu ku qasbanaadaa duuliyaha diyaaraddu inuu bedelo marinkii diyaaradda darnaanta dabaysha ee dhacaysa awgeed. sidaa darteed waxaa lagu tiriyaa garoonkan mid ka mid ah 10 madaar ee ugu halista badan caalamka. Faransiiska, garoonka diyaaradaha ee Courchevel. garoonkani wuxuu ku yaalaa buuraha dushooda, waana mid aad u cidhiidhiya, waxayna dhibaato weyn kala kulmaan diyaaraduhu marka ay soo degayaan. qaar badan oo ka midana kuma guuleystaan inay si nabada ku soo degaan, waxayna duqeeyaan barafka. New Zealand, garoonka Gisborne. inay maraan baabuurtu garoonka diyaaradaha dhinaciisa waa arrin iska caadiya, laakiin marista tareen dhex maraya bartamaha garoonka diyaaradaha dhexdooda runtii waa arrin aad u halis badan. maalin kasta tareenka ayaa dhex mara wadadan garoonka dhexdiisa ku taala xilliga ay ka kacayaan diyaaraduhu ama ay ku soo degayaan garoonka. taasina waxay sababtaa shilal badan oo halisa. magaalada Honduras, garoonka diyaaradaha ee Tonquinton. madaarkani wuxuu ku yaalaa meel buuraleeya, waxaana la jaara guryo aad u tiro badan, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah madaarada ugu cidhiidhisan adduunka. waxa ku dhex burburay in ka badan 6 diyaaradood, waxaana ku naf waayay dad ka badan 100 qof. iyadoo sidaasa haddana garoonkani weli waa mid shaqaynaya. Portugal, garoonka diyaaradaha ee Madeira. waxaa lagu tiriyaa garoonkan mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu halista badan caalamka, cidhiidhiga laymanka wadada iyo dhawaanshaha badda awgeed. sidoo kale waxaa aad u sareeya degdega hawada ee goobta uu ku yaalo, waxayna sababi kartaa inay ka baydho diyaaraddu marinkeeda, waxaana ka dhex dhacay dhowr shil gudihiisa. Greega, garoonka diyaaradaha ee Alexandrios. waxaa laga dhex dhisay garoonkan jasiirad dalxiis oo aad u yar, dhererkiisu waxa uu leeyahay 1728 mitir, waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah garoomada diyaaradeed ee ugu halista badan caalamka marka la eego xajmigiisa oo aad u yar. magaalada Bohotan, garoonka diyaaradaha ee Baro. waxaa lagu tiriyaa madaarkan mid ka mid ah madaarada ugu halista badan caalamka, isagoo ku yaala goob buuraleeya, wuxuuna gaadhayaa dhererkiisu 1200 oo mitir. wuxuu ku yaalaa buuraha dushooda oo ka sareeya dhulka 18,000 oo fiit. madaarkan ma awoodo duuliye kasta inuu ka kiciyo ama uu ku soo dejiyo diyaarad, waxaana kaliya loo tababaray 8 duuliye oo awood u leh inay ka kiciyaan kuna soo dejiyaan diyaarad. magaalada St. Martin, madaarka Juliana. madaarkani wuxuu la jaar yahay badan ku dhex taala magaalada, waxaana ka dhex dhacay shilal dhowra degdega hawada ee ka jirta goobtan awgeed, wuxuuna gaadhayaa dhererkiisu 1300 oo mitir. Nepal, madaarka Lukla. wuxuu la jaar yahay madaarkani buuraha Himalaya, waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah madaarada ugu halista badan caalamka. dhererkiisu waxa uu gaadhayaa 500 oo mitir oo kaliya, waxaana laga yaabaa hal khalad oo kaliya oo ka dhex dhaca inuu galaafto nolosha dad badan. ugu dambeyntii waxa waajiba inaad ka fogaataan intaad ka fogaan kartaan dhammaan madaarada markaad safraysaan. hadduu ku qanciyay daawada muuqaalku like saar, haddii aad ku cusub tahayna channelka ogaal cusub subscribe saar una sii share kara asxaabtaada. waad mahadsan tahay.